سيتها مدن عنجان وان في عنهاي adiga xilkan sida aad u qabatay wadankan aad u imaatay fawdada iyo dhibaatada waa ay sii badanaysaa waxaan u maleynayaa dhaqanka dalka Hindiya in aadan si fiican u aqoon way igu adag tahay I'm still loading adiga dhibaato miyaad u aragtaa luqadda wadankeena haddii aad nagula hadasho no it's fine waayahay dhib ma lahan haddii aad ingiliishka xiisaynaysid waan kugula hadlayaa no problem laakiin shacabweynaha Hindiya waxa ay jecel yihiin luqadda Hindiga in lagula hadlo isku day marka wax walba kugu qaadatay dhaqanka iyo afka Hindiya inaad barato mudanaha soo dhintay madaawa socota ma dhacday aad daawooyin ma qaadataa maya laakiin xiisa aad weyn ayaa ka muuqda waxaana ay muuqata adiga xaq jir in aad tahay micnahayga dhinaca ayaad u badan tahay adiga kuma fahmin mideeda kale inta markii aad imaatay waxaad bilowday in aad wax walba xakamayso dadkana qabiiladooda ayaad weydiisaa talay waxba rabinaa ogaado 2000 ilaa 2009 nidaamkan ku shaqeynayna wax ka ogaado si fiican ii dhageyso muwaadinka Hindiga in qabiilkiis la weydiiyo anaga agteena qalad ay ka tahay midaas ma ogtahayna waan ogahay muda ayaan ranjaan waxaan u maleynayaa adiga howlahaada in ay yihiin kuwa ku gaara wadankaana marnaba aadan rabin in nabad iyo xasilooni ay ka dhalato mideeda kale sidoo aragtaa xisbiyada wadanka ka jira mucaaradka kuwooda sare iyo kuwooda hoosaba waa ay midoobeen waxaan rabaan xukuumadda inay ka hortagaan adiga sidee kula tahay aragtidaada cabir bal inay guuleysanayaan may kula tahay I don't care dabaqada hoose iyo dabaqada sare wax igama gelin taasna muhiim ma ahaanba teeda kale dadkan wadada iska caadi waxayna ka mid noqon doonaan mustaqbalka shacabkiina runta ah waxay ila tahay inaadan fahmin aad baan ku fahmay waxa kale oo ogaataa hadda kadib kiiskan faraha ayaad kala bixaysaa shaqadaadana waa la hakiyay laga bilaabo saacadda aan hadda kula hadlayo shaqadoo dhan waa laga joojiyay haddii aad waxaad isku difaacda aad haysatana berrito xafiiska waa inaad igu keentaa day dalabka waxyaabaha kale oo la yaab kale oo magaaladan ka dhaca waxaa ka mid ah qofka markuu fawdo wada in garab la siiyo inta fawdada wada iyagana way ka shalayn doonaan yaa wada fawdada si fiican ayaad u ogtahay mararka qaarna aan isdifaacna ayaa mararka qaar dadka fawdada wada kuwa degan ayaa dusha laga saaraa taliye anaguna waxaa caadi noo noqotay kuwa fawdada wada in aan garab siino sharcigana aan dhinac marno warkaas maxaad ula jeedaa xageed ma u badan tahay meelna uma badna ee waxaan doonayaa kuwa dabka shidaaya dhammaantiina inaan ka hortagno adiga yee kula tahay in ay dabka shidaayaan runta markaan kuu sheegay taliye qofka dabka shida waa qofka 12 maalintii ku soo waca taliye haddii aad u aragto kiiskan inuu yahay mid foodo anigana wuxuu noqon doonaa wadadii aan ku heli lahaa laakiin ha iloobin adiga shaqada in lagaa fariisiyo xasuusnow ها وانا صعدا شغله اللي جفريسي لكن قابك ان كردينايا hadii la codeynaa xisbigu u codeynaya aniga hooyaday waxay dhigi jirtay taqaan xisbiga oo waxyada lagu codeeyay eegan codeynaa hadana adigana yaad u codeynaysaa xisbi maroodiyaashan codeeha aniga fiyooriyaashan aku joogsadaan ka miirsadaan wili aniga xisbiga bajaajlayaashan oo codeyn lahaa bajaajlayaashu waa dhib badan yihiin akhay mudaharaadkooda zaid xaqooda dhacsanayaan xisbiga maroodiyaasha ka daran eegna sidoo kale waa dhib badan yihiin waryaha shibdhaya aniga xisbiga gacantooda ku shaqaystaana waa codeelahay kuwaasaa fiican ma ogta dhididkooda cunaan